lahayn iyo xogo kale ayaynu idiin soo gudbin doonaa. mar haddii si fiican aan u naqaanay qaxwaha ee awoodda badan iyo jalaatada ee Turkish Delight, maalmahani Turkigu wuxuu magac ka samaynayaa isagoo horumarinaya habab badan oo dilaa ah, isagoo ah ciyaaryahan caalami ah. horumarinta diyaaradaha aan cidi wadin waxaan markii ugu horeysay jiritaanka ee diyaaradaha daroonka ah ee Turkiga aan ka war helay kadib markii ciidamada Tigreega oo colaad kula jiray dowladda Itoobiya ay weerar rogaal celina oo la yaab leh ay ku qaadeen dhanka koonfureed iyagoo soo maray dhulka ciidamada ee federaalka, taa oo keentay in caasimadda Tigreega ay qabsadaan. waxaana ay muuqatay dhammaadka xukunka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, kaas oo ku baaqay shacabka caasimadda inay subeeyaan oo ay diyaar garoobaan difaaca ee ugu dambeeyay. laakiin si lama filaan ah ayaa ciidamada Tigreegu dib ugu gurteen dhanka waqooyi. hal arrin oo ciidan oo isbiirsaday ayaa ku khasbay taliyaasha Tigreega. waxaa jira wax la isku raacsan yahay in isticmaalka qalabka shisheeyaha, gaar ahaan diyaaradaha ee aan cidi wadin Itoobiya, ay si weyn u saameeyeen dagaalka markii dowladda Itoobiya ay dhabarka saartay derbigaasi. waxaa ka mid ahaa diyaaradaha daroonka ee Turkiga ee Bayraktar TB2 oo ah mid yar oo leh tiknoolajiyad horumarsan, miisaankeeduna uu yahay 8 meelood meel ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaal lahayn ee Mareykanka oo wadata 4 gantaal oo yaryar oo laser lagu hago. rasaasteeda la hagayo waxaa hubaal ah in ay burbur u geysteen ciidamada difaaca Tigreega hantidooda taageerada sida taangiyada iyo madaafiicda, ayuu yidhi Stein Metsa oo ah qoraa xarunta Orakis oo ah bog gaar ah oo baadhaya kororka diyaaradaha aan duuliyaal lahayn ee dunida. hadda si la mid ah sida ka dhacday Itoobiya, colaad kale ayaa caddaynaysaa, gaar ahaan gudaha Ukraine oo ka dhana ciidamada Ruushka oo leh nidaamyada difaaca ee hawada ee cabsida leh iyo awoodaha dagaalka ee elektarooniga ah. inkasta oo baaxaddeeda iyo culayskeeda aan la qiyaasi karin, haddana Bayraktar TB2 ayaa caan ku noqotay iyadoo burburisay tiro badan oo baabuurta gaashaamana iyo nidaamka difaaca ee hawada. muxuu Ruushku u awoodi waayey inuu joojiyo weerarada diyaaradaha aan duuliyaal lahayn ee Ukraine? Justin Branco ayaa soo jeedinaya in qaybta raadaarka yar ee Bayraktar TB2 iyo xawareeda gaabiska ah ay suurtagal tahay in ay haleeli waayeen bambooyinka ee raadaarada hawada ee Ruushka, kuwaas oo loo habeeyey diyaaradaha dheereeya ama gantaalada. Branco waxaa kale oo xusay in ay la yaab leedahay in muddada ugu weyn ee guusha Bayraktar TB2 ay timi toddobaadkii ugu horeeyay ee dagaalka, iyadoo ay jirtay isku dabarid naxdin leh oo u dhaxaysa qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee Ruushka. in ka badan 1400 oo ka mid ah baabuurta dagaalka ee Ruushka ee la burburiyey ayaa la aqoonsaday, waxaana laga yaabaa in weli Ruushku uu fursad u haysto sida daboolka difaaca ee Ruushka uu u wanaajiyo iyo dagaalka elektarooniga ah. si kastaba waa loo qaateen dhibaatooyinka ee diyaaradaha daroonka ah sida Itoobiya, halkaas oo saamaynta nafsiga ah ee weerarada diyaaradaha aan duuliyaal lahayn ay u badan tahay in wax badani ay wiiqday niyadda dagaalyahanada. Metser ayaa leh khatarta weerarada ee ka imanaya diyaaradaha daroonka ah ee aan la arki karin nafsiyan ayaa dhibaato ku ah askarta Ruushka. khatartaasi sidoo kale waxay caqabad ku noqon doontaa xeeladaha iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa. si kasta oo ahaado, dagaalka Ukraine, guusha laga gaadhay dagaalka Itoobiya ayaa iftiimisay miisaanka iyo casriyeynta ee barnaamijka daroonka ah ee Turkigu muddo sannada ah. marka loo eego sida badankooda ee dhigooda ah ee darooniska ah dunida, Turkigu wuxuu sharaf ku lahaa farsamada dagaalka ee aan duuliyaal lahayn sanadii la soo dhaafay. hadda waxay leedahay liis sii kordhaya ee macaamiisha, gaar ahaan isku horumadyada, kuwaas oo weli
aan danaynayn reer galbeedka. turkigu wuxuu si wax ku oola u soo gebagabeeyey mid ka mid a colaadaha la qaboojiyey ee midoogii sufiyeed ee hore, iyadoo loo marayo dhoofinta fudud ee raxanta diyaaradaha aan duuliyaal hayn. adeegsiga aadka loogu guulaystay ee baraktaar TB2 ee ciidamada Azerbaijan dagaalkii labaad ee Nagorno-Karabakh. dhoofinta diyaaradaha aan duuliyaal hayn, khabiirka Nicholas Falasli ayaa ku doodaya in awood ay siinayso Turkiga inuu gaadho isku darka ee soft power ama hard power, iyadoo loo marayo xidhiirka qotada dheer ee difaaca oo lala yeesho dowladihii ka dambeeyey midoogii sufiyeed, iyadoo la garaacayo bartilmaameedyada taageerada Ruushka ee goobaha colaadaha oo dhaawac ku ah saamaynta Ruushka ee gobolka. isla markaasna Turkigu wuxuu ka hormarayaa ciidamada kale ee reer galbeedka marka loo eego awooddiisa diyaaradaha hubaysan ee aan duuliyaal hayn. ciidanka Turkiga oo keliya ayaa la sheegay inay adeegsadaan in ka badan 140 ka mid a diyaaradaha baraktaar TB2 marka la barbar dhigo Britain oo leh diyaaradaha aan duuliyaal hayn 10 oo keliya oo Mareykanka lagu sameeyey ee Raptor, kuwaas oo ku jira da'da 20 sano jir. ciidanka cirka ee Australia waxay leeyihiin diyaarado aan duuliyaal hayn oo yaryar oo aysan ku jirin diyaarado hubaysan. Turkiga ayaa ku guulaystay inuu soo saaro diyaaradaha cusub ee Akinci oo noqon doonta mid aad uga casrisan oo leh awood qarsoodi ah iyo ilaalin oo ka weyn baraktaar TB2. shirkadda samaysay diyaaradaha Akinci ayaa sheegtay inay noqon doonto, marka loo eego waxaas oo dhan way adag tahay in aan la arkin tartanka hubka mustaqbalka oo soo baxaya. diyaaradaha daroonka ah ayaa ka dhaqso badan kana sahlan howlqabadyada marka loo eego maraakiib dagaal. rabitaanka diyaaradaha daroonka ah waxay si gaar ah u khuseeyaan dalalka soo koraya ee u hamuun qaba beddel raqiis ah ciidamada cirka. diyaaradaha baraktaar TB2 ayaa la xisaabiyey